halkan waxaan maanta isugu nimi xaflad ballaaran oo lagaga hadlayo ujeedadu tahay inaanu barnaamijkan kaga hadalo haweenka degmada Carmo inay soo bandhigaan sanadkii hore wixii uu qabsoomay iyo sanadka cusub wixii ay higsanayaan waxaan kala oo halkan kaga hadlaynaa oo aan rabnaa inaan taageero maanta wasiirada cusub oo markii ugu horeeyay baaqi ka soo yeeray oo hor dhigtay hadalladii ka soo yeeray golaha wasiirada oo maanta lagu asxiyay oo ahaa xadgudubyada iyo joojinta gudniin fircoonka aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa labadaas saddexda qaybood inaanu kaga hadalo iyo deegaanada iyo haweenweynaha haweenka horta meel ay joogaan waa salaameynaa aad iyo aad baan u salaameynaa meel kasta haweenku joogaan waxaan ka hadlaynaa siyaasadda gabdhuhu sida waxbarashada doorka maamulka iyo maareynta iyo iskoolada gabdhaha aan la geeyo wiilasha oo aan gabdhaha la geyn gudniin fircoonka oo aanu ka hadalay Carmo wax badan ay haweenku wadeen oo aan maanta aan leenahay meel fiican buu inii mariyaa alxamdulillah rabbil caalamiin maantana wasiirada cusubi ay horgeysay golaha wasiirada cusub oo maanta la joojiyay oo lagu dhawaaqay annana waxaan leenahay waan kugu taageeray waan kugu raacnay kusoo kelmadaha waa kusoo dhawaanaynaa waan la shaqeyn doonaa hadii Ilaahay idmo waxaan kale oo halka rabaa inaan ka taabto qorshaha aanu leenahay sanadka naga noo soo socda hadaan nahay haweenka Carmo waxaan qorshaysanay qaabka siyaasadda in magaalada loo dhiso council oo aan hore uga jirin degmada Carmo councilka waxaanu qaban qaabinay hadaan haweenka Carmo nahay xubnihii aanu ku lahayn haweenka Carmo waxaanu isku daynay qabiil baa ila wadayaashu wax ku qaybsadaan haweenku inay u codayaan gabar walba reer bay ka soo jeedaa reer walba waxaanu niri ilaa 8 qolo ayaa ku qaybsada councilka Carmo wax oo ah degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada 8 qolo waxaanu ololaynay inay qolo walba gabar keento oo 8 gabdhood ay ku guuleysato councilka aanu leenahay waxaanu leenahay waxa hadda hor ku goostay 7 gabdhood la dhaho baran waxay councilka ku soo darsadeen 7 gabdhood Carmo waxaanu leenahay 8 gabdhood baa noo qorshaysan qolo walba odayaasha waxaanu leenahay baaq ugu direynaa wiilashaba waa u qorshaysan oo waa siisaanin waxaan leenahay marka gabdhaha way naga go'an tahay inaa hadaanu gabdhaha nahay aadna siisaan odagii loogu yimaado gabadhii oday saxiix ka rabta oo nabadoonkeeda u tagta waxaanu leenahay war gabadha tariiba kan gabdhaha iska leh madaxweynaha aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay qaabku u dhisay dawladda Puntland waxa uu la siiyay inna macquula oo aan ku qanacsanahay hadaan gabdhaha nahay waxaanu leenahay Cabdi Wali doorkiisa guul baanu leenahay madaxweynaha cusub waxaanu leenahay deegaanada iyo degmooyinka aan ku noolahay hadaan nahay degmooyinka inay gabdhaha siiyaan doorkooda gabar walba isa soo sharaxdo odaguna uu ku shubo u saraadin wiilkii reerkii laba xamnood leh waa inay xumin gabar keenaan oo xumanta kala wiilka dhigaan saasa noo qorshaysan waxaan leenahay wasaaradda haweenka waxaan leenahay hay'adaha caalamka adeesoo kale UN-ka cid alla cid naga caawinaysa aad baan ugu soo dhaweynaynaa